السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan aad arkaysiin waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii noogu faani jirtay haddii aynu nahay shacabka Soomaaliyeed, haddii aynu nahay Afrika. waa magaaladii noogu faani jirtay inay dhaqaale leedahay, inay hanti leedahay, in ay maaragtay awood bani aadam uu gaari lahaa madii ugu sarreysay in ay gaartay magaaladii noogu faani jirtay. waa magaalo qof kastoo Soomaaliyeed mase qof kastoo Afrika ku nool mase qof kastoo Ilaahay wax siiyey uu jecel yahay inuu mar uu tago dalxiis u tago. waa meel la wada jecel yahay. waa Abu Dhabi waxa sidaan u galay oo sidaan yeelaya oo maantay meel kasto imaaraadka ka mada ilbaab kasto ka soo xiray waa qudratu Allah. ilaahay qudradiis baa ilbaab kasta ka xiray. wax yar hal daqiiqo ka yar awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo marna aan maanka la gashan oo marna aan la maleysan karin siday u gashay. waxay la daaw meeshaad u jeediin waa Abu Dhabi mase Dubai saa u taqaaniin. waa dhulkii noogu faanay inay ay leeyihiin awood bani aadam uu Ilaahay siiyey madii ugu sarreysay inay ku dhiseen noogu faaneen, oo maartay waddooyin ayaga iswadaya nooga faaneen. gawaari awood kasto bani aadam Ilaahay uu siiyey meeshii lagu dhisay. Allah subhanahu wa ta'ala wax 10 daqiiqo ku yar buu ku gabagabay. waa qudrada Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiis waay. wax aniga aan la yaabanahay ilaahay hadda oo aniga aan la yaabanahay waxay tahay dhibaatadan iyo maaragtay khasaaradan intaa la eg meesha ay ka dhacday maanta haddii Afrika ay ahaan lahayd, weliba si gooni ahaan Soomaaliya ay ahaan lahayd. wallaahi waxaan hubaa wasiir walaa hildhibaan walaa madaxweyne walaa ra'iisul wasaare inay afka baarkis dhawaaqi lahaayeen si ay dunida ay hanti ugu helaan oo maal ugu helaan. oo waxa ay maaragtay akoonada ku shibtaan oo boorsooyinka ku qaataan si ay ugu helaan. waan hubaa inay afka baarkis dhawaaqi lahaayeen oo ay dhihi laayeen hanana soo gaaro. bal suurayso magaalo mase dal oo sidaan dhibaatadaani ka dhacday oo hal xildhibaana mase hal wasiira mase hal gobol aantu meel soo istaagay aan laga maqal hanana gaaro hanana caawiyo aan laga maqal. Abu Dhabi mase Dubai way og tahay mase maankeeday ku haysaa biyahan iyo dhulkan iyo waxaan sidaan isku jarmay sidaan isku noqdeen. qof kastoo niyadiisu waxay ku jirtaa mar uu roobka uu joogsado. way og tahay waxaan inay iskugu filan tahay 24 saacadood gudahooda inay ku kala tuurayso. way og tahay annakana 5 bilood ka hor xaqaayadii nagu da'day biyahoodiya weli aan meel marna la'anahay meeshaan noo yaalin. war Ilaahay baa idinku dhaariyay. war waxaana fiir biyahan cad arkaysiin meelaha qaarkood sida maartay meesha hadda aan tusay daalo masaajidka
maaragtay xareed meesha maaragtay bakaaraha sariraha lagu sameeyo ilaahay baa idinku dhaariyey dal mase dowlad mase gobol mase waddan oo caasimadiisii uu ku shaqaynayay oo sidaanay u taallo xildhibaankeeda walaa wasiirkeeda ninka ugu sarreeya ninka ugu hooseeya dhammaantooda wada tuuga noqdeen ya oo xogal yar haddii ay da'do say dunida mase qaramada midoobay mase wadamada shaasheeye lacagta haysto si ay boorsooyin ugu qaataan oo afka baarkiisa dhawaaqaan lacagahaasi markii ay soo dhacaanna mase cokoomadooda ku soo dhacaan lacagta ugu yar mase lacagta ugu badanoo maantay dadka handhahooda la tuso waxa loogu qabto hadday ugu badato waa lacag dhan 50,000 oo doolar intii madaxa lagaa soo dhigo mase 40,000 oo doolar lagu yiraahdo lacagtii la soo dirayba waxaas lagu qabtay waan hubaa dadka maanta Soomaaliya gacanta ku hayo waliba si gaar ahaan caasimada Soomaaliya gacanta ku haya waan hubaa hadday sida dhabta rasmiga hadday u shaqayn lahaayeen ay u xaqar bixi lahaayeen waan hubaa magaalada Muqdisho in ay noqon lahayd waa caasimadaha dunida ku yaala mad la tartanta inay noqoto mas inay noqon lahayd qasab waay laakiin waa ilaahay alxamdulillah waa ilaahay mahadiisa waxay gacanta u gashay tuugay gacanta u gashay ilaahay ka dulqaado wax maantay cid kasta la yaaban tahay oo cid kasta maanta la yaaban tahay carabtii dunidii mase Yurub iyo meel kasta la yaaban yahay waddan oo dhammaantii sidaani uu noqday biyaha sidaan u harqiyeen oo aan laga maqal hanana soo gaaro naga soo gaara wallahi ana laga maqal roobkii hadda la soo dhaafay sanadkii hore Washington siday noqotay waad ogtihiin waa la wada socdaa ma maqasheen nin soo gaara ma maqasheen wallahi lama maqal ya halkaas waxaad ka ogaanaysaa qof bani aadana haddii aad wax ka bariso wallahi oo billahi oo tallahi ina weliga aad noolaanaynin madaxa kor u soo qaadi karin waa tii uu sheegay ya madaxweynihii dalkan soo hogaamiyay Maxamed Siyaad Barre ya gacmo shisheeye nin horsay gob maaha wallahi ayadii oo dhab ah maantay waxay ka jirtaa Afrika si gooni ahaan roobkan hadduu ka di'i lahaa Soomaaliya hadduu ka di'i lahaa ya waxaan hubaa cid kasto inay afka baarkiisa dhawaaqi lahayd ya waliba dunida ay ku sii tashanayso hadda ay ku tashanayso oo ay og tahay roobkan haddii Afrika mase Soomaaliya haddii ay ka da'aan ay og tahay inay qaylilayaan siyaasiyiinta mase Afrika in la qaylinayo ay og tahay bay hadda bayaan bay soo saartay ay ku leedahay meelaha biyadega ha laga fogaado ha laga dheeraado iyadoo waliba hantideeda u nahayso jeebkeeda iyo hantideeda maalkeeda iyadoo u nahayso oo ay leedahay ha laga fogaado meelaha biyaha fadhiista ilaahay baa kugu dhaariyay maantay hadday dad shisheeye mase dowladihii shisheeye oo hantidoodii ay kaala baqayaan ay ku leeyihiin si hanti aan noo weydiisanin shacabkaan u sheegno si hoodhoodii aan waxba noo weydiisanin ya ilaahay baa idinku dhaariyey in xeer maanta la taagan yahay dowladna ay ku leedahay mar uun roobku mau naga joogso mau naga dhaco ay leedahay ya ay og tahay waxaasay xitaa mukulaalihii 20 saacadood ka hor biyo qaadeen ay og tahay inay soo celin karto ya annakana maantay 6 bilood ka hor roobkii noo da xataa xaqaayada nagu da'day biyaheeda ilaa aysan noo hor yaalin ilaahay baa idinku dhaariyay maanta meesha la kala taagan yahay ka war halkaan maanta kala taagannahay ka war wallahi isku wadaha tamani ya ana waxaan u mareynayaa mas waxaaba isriba war bani aadamka ilaahay markuu abuuray war Afrika maxaa laga abuuray qaabkee loo abuuro dadkan ya war dadkan qaabkee loo abuuray
wallaahi waxa la soo bardhigi kara maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga soo gaaro ilaahay roobkaaga iyo khayrkaaga nasiib laakiin waxaan oo kale hana siin ilaahay adaan kaaga maxadinay ka barin ilaahay hana siin waxaan oo kale ahay taasi halka noo taalo nin aan la yaabay fiiri Soomaalida waxay tiraahdaa nin aad muuqiis aad arkayso ya nin aad muuqiis arkayso qof lama weydiiyo tusaale qof aad arkayso halka siiso aad arkayso ka waran hadaa tiraa ka waran qofku hortaagan hebel ma aragtay hada waa nin aad arkayso way Soomaalida maahmaaha kale waxay gelisay nin hurdaaya la kiciyaa nin soo jeeda lama kacsho taasi oo ka dhigan ka war nin soo jeeda ka war hadaa garaataan ku bilowdo hada waa soo jeeda maxaad kicinaysaa taas oo ulujeedkeedu uu yahay oo waliba loo dafiray waxa ay ku qarsoon aad garanayso asa waxay dhahan nin hurdaaya la kiciyaa ya nin soo jeeda lama kiciyo nin aan kulli wada garanaysaan waliba Soomaalida markii la yiraahdo dhaxda markii la joogana ay ku tilmaameen ya ninkii waalna ay ku tilmaameen war muuqaalka mas'uulka anyar daqiiqad ba waxay la daawaa 3 daqiiqo asleeyahay laakiin hadaladiis dhammaantood markaad fiiriso waa wax ayaga isburinaya ya waa wax ayaga isburinaya ilaahay baa idinku dhaariyay mas'uul dhan oo hadlaya oo dal dhan matalo ya oo dal dhan shacab maal dadkiisa matalo oo sidaan u hadlay weligii intaan noolaa ma arag ya war ninka dhageyso Jabuuti waxa lagu maamaha qofkii guri ku jiro quraado dhagxanta tuurtuuri wuxuu leeyahay maamaha baa soo qaatay nin guri quraadada degan dhagxanta tuurtuuri taasi oo la jeedo oo uu wado shaakada u wado Ismaaciil Umar Geele waa ninka Soomaali intaada kale u taqaano ya Soomaali intaada kale u taqaano xogaanka Soomaaliyeed dadka qaarna ay dhahaan ya la wajiilaha Soomaaliyeed buu wuxuu leeyahay Ismaaciil Umar Geele kulaha shacabka Soomaaliyeed haddii uu kala qaadi karin oo runtu u sheegi karin faraha naga qaado taasi oo ula jeedo uu ka rabo in ay noqoto shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ya waa in la kala furfuro waa mid kaliya maantay oo uu leeyahay Ismaaciil Umar Geele haddii aad samayn karin faraha naga qaad uu leeyahay waa mid kaliya Soomaali mar hore ay ku rogantay oo la isku baabiciyay oo ilaa ay haddana qofka dariskiisa salaami karin baa halkii daris soo haray ayuu rabaa in la kala qaado oo uu leeyahay Ismaaciil Umar Geele dadka haddii uu kala qaadi karin faraha naga qaado ilaahay baan ku birnay dhabti iyo dhabarka Allah ka jabiyo oo dadka reer awdan ee wada degan wada dhashay ee ciiseega bulshada u badan walqulada laga daayo ya kala qaybinta hadda magal haddana dadkan reer awdal kulaha oo isla degan oo wax wada qaybsida ya ha kala qaybin hadda muxuu lahaa Soomaalida kulaha hadduu runtu sheegi karin Soomaali oo kala tuuri karin faraha naga qaado haddana muxuu leeyahay shacabka halka degan oo wada dego oo isku dhaxnool ya ha kala tuurin ha kala qaadin hadda waa afki hadda uu lahaa Soomaalida runta hawsha ha kala qaado uu lahaa ayuu haddana uu horeeyay shacab kale inuu kala qaado mamnuuc way inuu waalin yahay inuu caafimaad qabo kulleeyba su'aasha idinka leeyahay ka rabaa Ethiopia biyaysiisa leerkaysiisa qaadkaysiisa Jabuuti inagu ciideenu siina ciidda lagu dhiso magaladi Jabuuti wuxuu leeyahay Ethiopia waxay siisaa kulaha
biyahay siisaa ya korontaday siisaa ka warran adi qaadkana way siisaa annakana waxaynu siinaa ciidda ayaan siinaa carrada ayaynu siinaa ilaahay baa idinku dheeray dullinimo intaa la eg ka war ya dullinimo dowlad la ilhaanisto mase dowlad weerar lagu qaado weerarkiis lagu qaado waa madii ugu xumeed waay hadda fiiri dowladdan oo ka awood badan ayuu wuxuu leeyahay dowladda kulaa waxay siisaa korontada iyo biyaha iyo qaadka anigana waxaan siinaa ciidda carradaan siinaa xasbuna allah jabuuti waa ilmaha ayaanu gacanta ku haynaa inaga Ethiopia ilmuhu waa inuu edeb yeeshaa jabuuti waa cilmo jabuuti waa caruur oo Ethiopia aniga gacanta ku hayno caruurtan waxa loo baahan yahay inay edeb yeeshaan waa sax waa inay edeb yeeshaan laakiin caruurta waa Somaliland ana runta ku sheegin caruurta waa Somaliland alweenka caruurtana waa adiga ku xigeenkan waa Muuse Bixi kan kalena waa Ndendo waa Ndendo caruurta waa idinka caruurta waa idinka sababta ku darso waxaan leenahay Soomaaliya way soconaysaa billahi kariim ciidamadeena difaaceeda waa fiican yahay dowladdu si fiican baa la sameyn doonaa insha Allah Soomaaliya way soconaysaa ciidamada jawgeedu waa degan yahay dowladdu si fiican baa la sameyn doonaa hadda waa ciidan ugu yaraan 300 iyo qadaadii xabsi ku jiraan boqolkii qof soo hartay maalin kasta meel baa loo inta sawir laga soo qaado 18 May haga la geey sawir baa laga soo qaado haga laga war waxba maxarna maxaa la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam war waxba maxarina maxaa hare war wax hare noo sheeg wax hare ma jiraan ya ilaahay afmaad ha ku siiyo reer raas caanood waxaan leeyahay maandeeq dhashay way dhalisay ha ka qadin baan leeyahay reer laas caanood waxaan leeyahay maandeeq way dhalisay ha ka qadinina taasi oo la jeedo reer laas caanood weli wuxuu ku tirinayaa mase uu ku darsaday liiskooda uu ku darsaday Somaliland hadda waa dadkii mar hore ictiraaf la siiyay oo calankooda babanaya oo golo wasiire leh oo hildhibaano leh oo madaxweyne leh oo xataa dowladda dhexe Soomaaliya hataa aan u baahnayn ayuu leeyahay ka maartay maandeeq dhashay ha ka qaadinina hadda waa meeshii uu lahaa awood baa lagu raadinaya awood baa la adeegsanayaa si laasaano si loo socoliyo waa meeshii uu lahaa oo ciidankii 300 ka badan ay xabsi ku jiraan hadda u fiirso 300 ka badan xabsi ku jiraan ya oo cabdi bootaan hogaan u yahay oo maxkamad sugyaala asaga hadlaya dacwadiisa waxay taala heeg asuu ku leeyahay maandeeq dhashaya ha ka qaadinina la hawla wala quwwata illa billah Muuse iyo cid kale diidan wuu iska tagi cod buu ku tagi cod ayuu ku tagi laakiin caruurtaan u qaxinina jaamacadaha burburinina dumar baa noo heesi umad laguma wado umad aqli baa lagu wadaa iyo wanaag baa lagu wadaa aqliga awooyaashin iyo aabayaashin keen كانت عليه هذا هو شيء عقلي إن ما عقلي وحلقوا وذا كرا أو حاسي أو وحلقوا هوالقوا وذا كريم مالك دقاك لاس عند بلاود نينك هرجيس أنتو استاجيري لاس عند عود بانكوس علنينا ونينك يريوا يا هرت السياسي قسيس واحد لو باهين هاي وإن اسمقلان عفكيسة يدكتيسة وإن اسمقلان يا فيصل علي ورابي وحي كوفي عناد مركي دقالك بلابنا يا الربي هقانكي دادك بابعنا يا الربي إنو يرادو إلهي كعب سيداد كان فراك قادة الربي إنو يرادو مركي دادك لبابعي أول مقالة لو قبصدي أو حتى مارتي علن سماستين ومارتي ما خاتوم استيلير مقالة دان أو قبل دان سوماليا كتر سنة غطي أيو حد وحو نقداد عليا إنو ليهي ما عندك ده شيء حكا قادننا يا حكا قادننا قف كان نوع عاني أو كلا قف كان نوع عاني أو كلا
وقفك لو باهي هاي إلا يدها قبطو دادك أف الصومالي وكو هلا سببتو قف كاني أو كلا سدح سفورية كو إنو بانالية كو إنو بانالية لابو وإنو يهي وحي ورخبي أنتو دلالي وقارواي وربو إنو حوكو حلو تان سدهان وإنو تهي قفك وإنو حكو رادس يهي مرنا وددك كتن باي ومر رادين إني نقدان dalkooda iyo diintooda iyo dad ka tashanay uma rabo mar kasta asiga waxa la rabo ninkaani oo kale ilaahay hanaga qabto ninkaan oo kale ilaahay hanaga qabto ya kullayba anta warkeedin ku deegay Soomaali war ma deego antaas waa fikirkeyga wixii aan qaldana waa amali shaydaan ilaahay hanaga cafiyo بليز وحن كاو السنة يا موغال كان هدوك سوغاري إن هذا أصابتها إيسي قرسيسو سبسكرايب إيسارتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته